maanta magaalada Muqdisho kulan lagu qabtay oo ku aadanaa u diyaar garowga doorashooyinka dalka ka dhacaya ee haweenka iyo xaqiijinta qoondada boqolkiiba 30 ee haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan halka kulanka uu ka dhacayo ee magaalada Muqdisho aan kula kulmay Luul Kulmiye oo kamid ah dadkii soo qaban qaabiyay kulankan isla markaana qurba joogta Soomaaliyeed kamid ah marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ujeedkaaga magaalada Muqdisho iyo ka qaybgalka kulankan iyo guud ahaan waxa uu ku saabsan yahay muhiimadda haweenka Soomaaliyeed uu leeyahay marka ugu horeeya waa kulan ay soo qaban qaabiyeen kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed annaga waxa halkan u joogno waxay tahay wixii hadal ah ama go'aan ah waa meesheeda ee sidee lagu xaqiijin karaa taas inay dhacdo waa mid labo sideen ku heli karnaa ajanda midaysan oo dumarku ay leeyihiin oo geedi socod wanaag sameeya si 2020 aan la isu weydiinin meeqa dumar gelaysa sideedaba oo ay dumarku doorkooda amba calaamad su'aal ba laga keen ajandahaasna in la abuuro ayuu shirku gundhig u yahay marka waxaad aasaasyaashooda kamid dhaqdhaqaaqa sinaanta haweenka Soomaaliyeed waxaadna kamid tahay qurba joogta Soomaaliyeed barnaamijkaas in la aaso maxaa ka dambeeyay ujeedka ka dambeeyay maxay tahay muxuuna faa'iido u haweenka Soomaaliyeed u leeyahay waayo ururaha haweenka dalka ka jira muxuu soo kordhin karaa dhaqdhaqaaqaas horta ujeedada ka dambaysa in la abuuro iyo sababtu ku abuuro labaduba way iska soo daba dhow yihiin dadkii aas-aasay waxa hormuud u ahaa oo fikradda kow ee ka timid Saynab Maxamed Xasan annaga oo tiro badan ayaa ku ayidnay oo ku raacnay 9 naga mid ah ayaa la gashay guddigii marka inay maaragtay hoggaanka la qabtaan iyo sidii lagu dardargelin lahaa aniga Ifraax Faarax oo garab taagan labadeenaba waa ka midnahay 19 gabdhood oo abuurayaashii ah ama gabadhii fikradu ka soo maaxatay kuwii ku ayiday oo la qaaday hoggaanka ku jira ah maantana waxaan ka midnahay labadeenaba hoggaanka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed wuxuu ku abuurmay sanadkii hore hadaad xasuusato 2015 Maarso ayaa waxaa dhacday in rag maaragtay meeqaan iyo magac bulshada Soomaaliyeed ku dhaxle meelo badan iska aruursaday ay kulan ku sameeyeen magaalada Minneapolis ayagoo kulankaas ciwaankiisa uu yahay ka tashiga ama ka wada hadalka higsiga 2016 hal haweeneyna inuu ku jiro annagoo tiro badan ayaa maaragtay baraha bulshada hal mar ka wada qaylin see ku dhici kartaa Soomaaliya meena rag iyo dumar ka koobnayn maxaa kalifay in ragga kaliya ay dhahan maaragtay waxaan aan haynaa oo aan ka tashanayna higsiga 2016 taas ayaa maxaa ku xigtay anoo tii doodeedii wadno inay Toronto tiyo kala ka dhacdo haddana aan gabarna ku jirin marka waxa la isweydiiyay way aan u leenahay raggan walaalaheen ah maxaad noogu yeeri weyseen annaga naftirkeena ma waanan samayn karin higsi ku hagaagsan doorka dumarku ay ku leeyihiin hadhowti ragga iyo dumarka sababtoo marka jinsi aan leenahay xaq u raadinta ama xuquuqda jinsiga sinaanta jinsiga horta sinaantu ragga iyo dumarka Ilaahay ayaa kala duwan isku nooc ma aha Soomaalida badankood sinaanta ku dhigaan sinaanta aan raadinayna waxa waaye u sinaanta xuquuqda ama ayadoo qofkii maaragtay lagu fiirin inay tahay haween inuu yahay rag inaan loo fiirin tacliin ma leeyahay tacliin ma laha inaan waxba lagu sharuud loo fiirinin aan ahayn waxa la qabanayo qofkaasi aqoon ma u leeyahay khibrad ma u leeyahay ma ka soo bixi kara tiya marka waxay keentay in gabdhihii aan isabaabulno muddo yar waxa soo baxday baahidu inay badnaydba ilaa 8,000 marka hore 5,000 ayaa 2 bilood ma maqaan ayaa ku soo biirtay kacdoonkii 9,000 ay gaareen wixii ka dambeeyay 9,000 ayaa marka meesha isla jooga ka wada tashada su'aashaadan ahayd maxay kaga duwan yihiin ururo badan ayaa jira waxay kaga duwan yihiin service anagu ma bixino hawl qabad ma bixino sababtoo ah hay'adaha tira ma laha ma aanan nihin inaan ku soo biirno waxa jira waxaan nahay in aan raadino tala bixinna aan siino awoodeena iyo dhaqaalaheena isticmaalno si loo helo dumar midaysan jawi midaysan ummadda horumarkeeda ka shaqeynaya sababtoo ah haddaan annagii aan haysano program midaysan
hadda maanta waxaan wada shaqaynaynaa sayda oo hadda na garab taagan waxaan la wada shaqaynaynaa maxay ahayd ururkaas ayagana haweenka oo ayagana na garab taagan waxaad arkaysaa shirka boqolaal waxa ka soo qayb galay hay'adood labadan aan isgarabsanay markii laga reebo taasna waxay ku tusaysaa calashan qurba joog waa ah yes gabdhaheena abuuray dhammaantood haddii xataa waddanka ka shaqeeyaan qurba joogay ahaayeen laakiin 9,000 oo ayiday oo raacday arrintan qurba joog ma wada ah kala barabar haddayna ahayn ayba ka badbaynba gudahay ku jiraan waa dad loo kala aan weligood waddanka ka bixin gabadha qurbaha joogta iyo gabadha gudaha ku jirta labaduba waa gabar Soomaaliyeed way isku baahi waxay raadinayaan waxay tahay waddankooda siday maaragtay wax ugu tari lahaayeen ilaahay xaqiis ma aha marka aniga iyo wiilka walaalkay ah intaan wax soo wada baranno khibrad soo wada helno qarankiina u baahan yahay la yiraahdo wiilka kaliya ha gelaayo naaqusnaantaasina way jiraysaa anigana wixii la isoo baray ama waxaan soo bartay oo kartidayda ku helay aan la isticmaalin ma aha intaas alaashan aniga la iliidaayo laakiin bulshadeena waxay soo martay dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye wuxuu keenay in muruqa la kaashado raggu la yaab male maanta inay isbidaan sababtoo wuxuu noqday waligiisna ahaa muruqa lagu kaashado reermiga xataa markay guurayaan aabbaha ayaa ahaa rag haduuna u joogin reerka cadawga ayay u liiteen dagaalkii sokeeyna tiyo kale ka dhigay laakiin macnaheedu ma nabad markaan haysano yes raggeenu waa badbaadadeena way nala joogan laakiin wax qabad markay noqoto u simana meen ahayn waxaan u doodaynaa waxay tahay marka anaga dumar hadaan nahay anaga 10 gabar baa naga dhimatay Dr. Idil Allah u naxariisto jannada firdaws Allah ka waraabiyo 10 hoggaanka wada waxaan dad u cararaya gabdhaha cararaya ama dad maaragtay u hadlaya gabdhaha ayagu tartanka ugu jiro doorashada anagu tartanku ma jirno hatta kacdoonka ayay u dhigantaa sharuudaha u dhigan uu yahay ambitionka ama maaragtay hamiga gabadha marna ma la istaajinayo inteena mid kamid ah haday hesho ambition ah ama hami ah inay siyaasadda wax ka noqoto way iska casilaysaa xilka ay hayso mid kaleeto ayaa soo gelaysa si loo joogteeyo way isku mid ma aha markaan aniga aan kursi raadsanayo iyo markaan aniga banaanka ka ahay oo u doodaayo sababtoo aniga haddaan kursi raadsanayo u doodaayo waxaan ahay maxaa la dhahaa ha qof calaashan danaysanaysa ma ihi qof ifraax wax u qabanaysa aniga danaysanay laakiin aniga haddaan kursi raadsanayn haddaan waxba meesha ka rabin haddaan dhaqaale ka raadsanayn haddaan waxba ka raadsan kaliya aan muujinayo oo soo saarayo baahida jirto iyo talooyinna aan keenayo waxa lagu xallin karo waxaan isleeyahay mustaqbalka codkeena inuu adkaan doono bulshada Soomaaliyeedna waxaan ka dalbanaynaa in ay dhageystaan oo dhuuxaan afka Soomaaliga qowwada uu leeyahay ilaahayna siiyay kelmadda sinaantana sadarka ay ku jirto ay ka qaataan ayna iska raacin kaligeed sababtoo ah markii kelmadda kaligeed la fasiro fasir bay leedahay markay sadar gashana fasir kale leedahay marka jinsigu waa laba dhadig kama maarmaan waa guri hooyo aabbo la'aantood ma dhismo qarankuna waa taasoo kaleeto dumarkuna xaq bay u leeyihiin qabiilkana dumar iyo rag buu ka kooban yahay sida daraadeed ayaan wacyigelin ku socoto oday dhaqameedyada xataa aan u duubnay ay ugu jirtaa maaragtay bulshada meelaha baraha bulshada ifraax adna waxaad ka mid ahay dadkii qurba joogta ah ee kulankan maanta ka qayb galay maxaa kaaga soo baxay adiga in kulankan Muqdisho lagu qabto ka ifraax ahaan waxa iga soo baxay inay haweenka Soomaaliyeed u midaysan yihiin maaragtay inay wax wada qabsadaan ay hawshaana ka go'an tahay maaragtay wadankooda iyo dadkooda ay wax ugu qaban lahaayeen xagga siyaasadana ay uga siman yihiin wili gabarba maaragtay inay wada tartamaan hadba booska ay raadinayaan ay helaan aqoontooda ay ku helaan waxaa jooga dalka gabdho yar yar oo xilligan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha dalka ka soo baxay oo wax baranaya gabdhahaasina in laga qayb geliyo horsocodka dalka dhinaca siyaasadda iyo shaqooyinka in loo abuuro iyo maadaama dadka wax bartay rag ay shaqooyinka u badan yihiin badanaa arintaasi adigu see kula tahay sidaas lagu xalin karaa kula tahay maadaama gabdhaha Soomaaliyeed dad ka mid ah wallahi arintaas arin weyn waay waxaan dhihi lahaa dhalinyarada horta waxbarashada ku dadaalaan wiiliga gabarba waxbarashada inay ku dadaalaan baa muhiim ah
waxa muhiim oo kale inay maaragtay dawladii mar walba jirto ee shaqo abuur u sameeyay maaragtay jiilka soo kacayo waayo 70% hadii la yiri waa dad ka yar 30 sano way ku muuqataa maaragtay inay dib ku badnaan karo marka arda badan in la soo saaro dad wax bartay in la soo saaro oo aqoon yahan ah si maaragtay dadka waaweyn ay noqdaan kuwa u batali doono markay maaragtay dadkaas ay baxaan marka gabagabada shirkan maxaad ka filaysaa shirkan waa shir socon doono iyo maaragtay shaqada waa shaqo kulay socoto waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo maaragtay dhinac walba ay ka fiican tahay inaan aragno rag iyo haweenba ay ka walwalaan ama ay ka shaqeeyaan Soomaali midaysan oo maaragtay dantooda taqaano horena u socoto aan lagu mashquulin xilkaan ha raadin ee lagu mashquulo maxaa noo dan ah iyo maxaa wada qabsan karnaa